Waxaa jiray boqor la yiraahdo Midas. Dahab aad u badan ayuu lahaa. Maalin kasta oo uu sii bato dahabkiisuna, rabitaankiisa ayaa sii kordhayay. Maalinta dhan kaydkiisa ayuu dhex joogaa, isaga oo dahabkiisa tirinaya. Maalintii dambe ayaa nin qalaad ama aan la garanayn u yimid oo u sheegay in uu u ballan qaadi karo in uu hal codsi oo wixii uu doono ah u fulin karo. Boqorkii waa uu farxay, isla markiina wuxuu yidhi, "Waxaan doonayaa in wixii aan taabtaba ay dahab isu beddelaan." Ninkii qalaad ayaa weydiiyey boqorkii, "Sidaas in aad doonaysa ma hubtaa?" Boqorkii ayaa yidhi, "Haa, waa aan hubaa." Ninkii ayaa yidhi, "Beri subaxii marka cadceeddu soo muuqato, wixii ka bilowda waxaad haysataa taabashada dahabka ah. Wixii aad taabatidna dahab ayaa ay kuu noqonayaan." Boqorkii waxa uu is yidhi, "Malaha waa aad riyoonaysay, waxaanina maangal ma aha." Laakiin markii uu toosay ayaa uu sariirtii taabtay, dahab ayaa ayna isu beddeshay. Waa run, wixii uu taabtaba waa dahab. Waxa uu isku yidhi, "Rabitaankaygii ayaa ii rumoobay. Adduunka anaa ah qofka ugu farxadda badan, balse intee in le'eg ayuu sii faraxsanaan karaa?" Daaqadda bannaankeeda ayuu eegay, waxa u muuqday gabadhiisii oo bannaanka ku cayaaraysa. Waxa uu is yidhi, "Aad ka farxisid oo la yaabkaaga tustid, laakiin inta aadan bannaanka ugu tagin aad buug akhrisatid." Markii uu buuggii taabtay ayaa uu dahab isu beddelay, kadibna waa uu akhrin kari waayay. Waxa uu u fariistay quraac, balse cuntadii iyo weelkiiba dahab ayaa ay noqdeen. Waa uu gaajaysnaa, wuxuuna yidhi, "Dahab ma cuni karo mana cabi karo." Kadib ayaa gabadhiisii oo ordaysa u soo gashay. Haddii uu habsiiyeyba, taallo dahab ah oo taagan ayaa ay noqotay. Boqorkii madaxa ayaa uu rogtay, oohin ayaa uuna bilaabay. Ninkii ayaa maalintii dambe ku soo laabtay oo weydiiyey inuu ku faraxsan yahay taabashadiisa dahabka ah iyo in kale. Boqorkii baa sheegay inuu yahay qofka adduunka ugu xoogga badan. Ninkii ayaa markaas weydiiyey, "Maxaad jeceshahay in aad hesho? Ma gabadhaada aad jeceshahay, mise taalladeeda dahabka ah iyo koobab dahab ah?" Boqorkii waa ooyay, cafis buuna dalbaday. Waxa uu yidhi, "Waxaan diyaar u ahay inaan dahabkayga oo dhan baxsho, ee fadlan gabadhayda ii soo celi. Ayada la'aanteed wax qiimo iigu fadhiya ma lahane." Ninkii ayaa markaas boqorkii ku yidhi, "Hadda ayaad garaadsatay." Wax walbana sidoodii ayay ugu soo noqdeen boqorkii. Boqor Midas gabadhiisii ayaa uu dib u helay, cashar uusan ilaawi dooninna waa uu bartay. Noloshu in badan ma aha waxa kaa maqan ee aad u malaynayso in nolosha dhammi tahay. Waa qalinkii Dr. Jaamac Sahal. La wadaag oo uga faa'iiday qisadan asxaabtaada kale. Hal iyo laba fikirkaaga ii soo qor casharka laga baran karo. Muuqaalkan waa mid waxtar leh, sii sheer gareeya.